dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa maanta ku tilmaamay maalin madow kadib markii mid ka mid ah taageerayaashiisa ugu weynaa lagu dilay dib toogasho isagoo u qudbadeynaya arday jaamacadeed. madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa sheegay in ay u tahay maalin madow kadib markii toogasho lagu dilay mid ka mid ah taageerayaashiisa ugu waaweynaa isagoo waqtigaasi khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday jaamacadda UT ee dalkaasi. madaxweynaha waddanka Mareykanka Mr. Trump waxa uu intaasi ku daray in dalka mid ka mid ah taageerayaashiisii ay ka dambeeyeen kooxaha nacaybka dimuqraadiyadda iyo xaqtiga in laga hadla nacab, isagoo amray in si degdeg ah loo soo qabato ciddii ka dambeysay dilka dambigaasi. taageerihiisa uu ku sifeeyay shakhsi firfircoon oo aad isugu dhow yihiin madaxweyne Trump iyo qoyskiisa isagoo aasaasay koox muxaafid ah USA markii ay da'diisu ahayd 18 jeer. isagoo intaasi wixii ka dambeeyay ka shaqeynayay fulinta siyaasadda Mr. Trump. geesta kalena siyaasiyiinta labada xisbi ee dalkaasi ee ka jira ayaa sheegay in aad uga xun yihiin dilka loo geystay mid ka mid ah taageerayaashii ugu waaweynaa madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump oo lagu magacaabo Mr. Carlian, isagoo sidoo kalena si ka duwan uga hadlay dilkaasi.